warka madaxdiisii waxa la abaal mariyay qaar ka mid ah macallimiinta doorka wanaagsan ka qaatay hirgelinta geedi socodka waxbarasho. ururada rayidka bulshada ayaa waxay sheegeen in kaalintooda ay ka qaadanayaan si doorashadu ay u noqon lahayd mid ku dhamaata nabadgelyo iyo hab dimuqraadi ah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسر دوادا وركي تلفزيون كقرنكا دالكا إثيوبيا وتوس إدين كإيمانية عاصمة دالكا أديس أبابا. أنا نصر الدين حسن أيدين سوتشادينيا وركي أوردا مايستران. وحلا بالمرية قار كمد معلمين تدور كوناسن كقاتي جدي صعد كأديجا هرجلين تو حبرشوا. سيدا وكورا ما يوريا ETV حمدي محمود. ururka macallimiinta dalkan Itoobiya waxa uu kamid yahay ururada ugu facaweyn leh waxana la aasaasay sanadku markuu ahaa 1941 waxa markii ugu horeysay la qabtay munaasabad heer qaran ah oo lagu abaal marinayo qaar kamid ah xubnaha ururka macallimiinta hawlgabka ah iyo sidoo kale macallimiinta waqti xaadirkan shaqaysa ለኢትዮጵያ መምህራን ምስጋና ugu horeyntii munaasabadani ayaa waxa ka hadlay wasiirka waxbarashada ee dalka Dr. Engineer Getachew Mukria waxa uu sheegay in sharaf mudan yihiin macallimiinta iyagoo noloshooda hooseyso dhibaatooyin kalena ay u dheer yihiin waqtigooda ku bixiyay sida ay u soo saari lahaayeen jiil aqoon ku hubaysan በኢትዮጵያ ያላችሁ መምህራኖቻችን ባላችሁበት ዝቅተኛ ኑሮ wasiirka ayaa xusay in macallimiinta oo ah kuwa noloshoodu hooseyso ay soo saareen maalqabeeno professorro saynis yahano dhakhaatiir duuleeyaal iyo hogaamiyeyaal sidaa daraadeedna macallimiintu ay yihiin aabaha aqoonta mudan yihiin sharaf ixtiraam iyo qadarin gaar ah ስለዚህ ለእናንተ ታላቅ ምስጋና ታላቅ ክብር ታላቅ ውለታ አለብን እጅግ እናመሰግናችኋለን እጅግ እናከብራችኋለን wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in siyaasadda iyo istiraatiijiyadaha dawladdu ay ku horumarinayso sektorka waxbarashada ay qayb ka tahay horumarinta macallimiinta oo leh baakeejiyo ama xidhmooyin kala duwan የመምህራን ልማት መርሃ ግብር አንዱ ነው መምህራን ለሚያስተምሩበት ደረጃ የሚመጥን የትምህርት ዝግጅት እንዲኖራቸው dhankiisa gudoomiyaha ururka macallimiinta Itoobiya Dr. Yohannes Bente ayaa waxa uu dawladda ka codsaday in ururka taageero adag la siiyo si ay macallimiintu uga mid noqdaan kuwa ka qayb qaata arrimaha siyaasadda kuwa dhaqaalaha iyo kuwa bulshada ባለስልጣናትም ተገቢውን ጥበቃና ድጋፍ ለመምህራን እንዲያደርጉ በአክብሮት እንጠይቃለን munaasabadani lagu abaal marinayay macallimiinta doorka weyn ka soo qaadatay waxbarashada dalka ayaa waxa ka soo qayb gashay madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Marwe Sahle-Worqi Zawde وهاجاج مدحوينها جمهورية الديمقراطية فدرالك إثيوبيا مروة ساهلة-Worqi Zawde ayaa waxay sheegtay in xirfadda macallinimada ilaa ay hadda aanan la siinin qiimaha ay mudan tahay madaxweynuhu waxay sheegtay in 10kii sano ee la soo dhaafay qaybtani laga soo hooyay natiijooyin muuqda balse macallimiinta looga fadhiyo inay doorkooda ka soo baxaan Sahle-Worqi Zawde madaxweynaha Itoobiya ayaa hoosta ka xariiqday sida laga maarmaanka u tahay in la kordhiyo tababarada xirfadaha iyo waxyaabaha kor u qaadi kara heerka nolosha macallimiinta وهاجاج ولي واحد داون إنسان وركي تلفزيون كقرن كإثيوبيا وزيركي هراء بيها إدلك السودان دكتور عثمان أتوما أو رئيسي سي تلفزيون كإسكاي نيوز لانتيس عربية أيا وحاو الشيء إن بوحينتا لبعض يتصدحات إثيوبيا أي كوسا ميسي بيحرنكا عن وحبا أي أدمين بيها دلك مصر دكتور عثمان أو مدة 49 سنة كشقيني حولها بيها يودن كيسا سودان ayaa waxa uu tibaaxay in biyo-xireenkani uu faa'iido u yahay labada wadan ee Suudaan iyo Masar wasiirkii hore ee biyaha Suudaan ayaa waxa uu sheegay in sanadkii la soo dhaafay oo kaliya oo biyo-xireenka Aswan qaaday biyo cadadkoodu gaarayo 24
bilyan oo mitir cubic. Dr. Cusmaan oo hore uga tirsanaa golaha cabinetka ee wadanka Suudaan ayaa waxa uu intaas ku daray in buuxinta wareegga labaad ee Ethiopia ay sameynayso ay rabto inay kaydiso 13.5 mitir cubic oo biyo ah. Tanina saddexaadna oo la filayo inay noqoto 10.5 mitir cubic oo biyo ah, taasi oo haba yaraatee aan wax u dhimaynin buu yidhi dalka Masar. dhinaca kale ururada rayidka bulshada ayaa waxa ay sheegeen in kaalintooda ay ka qaadanayaan sidii doorashada u noqon lahayd mid ku dhamaata nabadgelyo iyo hab dimuqraadi ah, sida uu ku waramayo wariyaha ETV Maxamed Maxamuud. goobjoogayaasha doorashada ee xilliyada doorashada ayaa waxay sheegeen in geed socodka doorashada xilliyadii hore si loola socon jiray dhaqdhaqaaqii kala duwanaa ee la samayn jiray xilligaasi oo kale aan imika aanay suurtagelin. waxaanay sheegayaan goobjoogayaasha doorashada ee rayidku in xilliyadan oo isla markaasina xanuunka safarka COVID-19 uu xadiday oo isla markaasina dhaqdhaqaaqii kala duwanaa ee ay samayn jireen xisbiyada siyaasadeed iyo waliba guud ahaan in ay la socdaan xaaladda guud ee doorashada ay ka xadiday xanuunka safarka COVID-19 iyadoo ay sidaasi jirtana waxay sheegeen goobjoogayaasha doorashadu in ay ka qayb qaadan doonaan kaalintoodan ka qaadan doonaan doorashada guud ee wareegga lixaad ee dalka ka qabsoomi doonta sidii ay noqon lahayd mid cadaalad dimuqraadiyadda ay hawlihii kala duwanaa ee looga baahnaa ay ku hawlan yihiin. waxaanay sheegeen iyagoo ka faa'iideysanaya muddada hadhay ee u hadhsan doorashada guud ee qaran ee wareegga lixaad dalka oo dhan ka qabsoomaysa sidii ay u noqon lahayd doorasho xor ah oo dimuqraadiyadda ay u noqon lahayd in iyagoo isticmaalaya aaladaha warbaahinta kala duwan ay u sii xoojin lahaayeen howlaha doorashada loogu diyaargaroobayo iyo wacyigelinta kala duwan ee looga baahan yahay ay iyagoo hawada ka faa'iideysanaya ay shacabka ku baraarujin doonaan. waxaanay sheegeen in ay si loo ilaaliyo xuquuqda codbixiyaasha doorashada iyo waliba sidoo kale xisbiyada siyaasadeedna ay ka shaqeynayaan howlahaasina ay u xilsaaran yihiin goobjoogayaasha doorashada ee rayidku hawshoodana si waajibaad leh oo xilkasnimo leh ay uga qaba shaqayn doonaan kaalintoodana ay uga qaadan doonaan doorashada guud ee wareegga lixaad dalka ka qabsoomisa. meelaha dhaqdhaqaaqa tartanka doorashooyinka laga mamnuucay. meelaha hoos ku qoran lagama fulin karo ololaha doorashooyinka ee codbixiyaasha lagu soo jiidanayo. masaajidada, kaniisadaha, xeryaha ciidamada militariga iyo saldhigyada booliska, dugsiyada waxbarashada iyo nawaaxigooda marka geedi socodka barisbarasho uu ka socdo meel masaafadeedu ama fogaanshaheedu 100 mitir ka yar yahay. meelaha shacabku ay wax kala iibsadaan miyiga iyo magaalooyinka maalmaha qaarkood marka kala iibsashada rasmigu ay socoto meel ka yar masaafo 100 mitir ah. goobaha laga fulinayo shaqooyinka dawladda ama shacabka saacadaha shaqada ee rasmiga ah. meelaha iyo goobaha ay ka socdaan shirar kale oo dadweyne. wagaag waxaa la sheegay in xirfadlayaasha adeega caafimaadka ee guri ka guri ay kaalin doora ka qaadanayaan adeega fidinta caafimaadka. hadalkan ayaa la sheegay xilli la xusayay xuska maalinta caafimaadka adduunka, sida uu ku waramayo wariyaha ETV Xamdi Maxamuud. warbixinno kala duwan ayaa tilmaamaya in natiijooyin wax ku ool ah laga gaadhay kor u qaadidda heer daboolka adeegyada caafimaad ee dalka, gaar ahaan waaxda hooyada iyo dhallaanka iyo sidoo kale ka hortagga cudurrada faafa sidii looga hortagi lahaa. arrintaasi ayaa la sheegay inay hirgelinteeda door laxaad leh ka qaadatay barnaamijyada ay ka midka yihiin adeega xidhmooyinka caafimaadka ee lagu horumariyo ee guri ka guri. wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka ee dalka Fiqaadu Ideta ayaa sheegay in dadaalla aan kala go' lahayn loogu jiro sidii loo horumarin lahaa adeegyada caafimaadka iyadoo la ballaadhinayo xarumaha adeeg bixinta caafimaadka, kordhinta xirfadlayaasha caafimaadka iyo kor u qaadidda aqoontooda. arrintaasi oo la dhaqan geliyaana ay wax weyn ku soo kordhin doonto tayada iyo heer daboolka adeega caafimaad ee dalka. የጤና አገልግሎት መስጫ ተቋማትን በማስፋፋት የጤና ባለሙያዎች ቁጥር በሙያ ስብጥር እንዲጨምር በማድረግ
waxaa si heer sare ah loo maamuusay maalinta caafimaadka adduunka oo sanadkan halkudhig looga dhigay aynu dhisno duni caafimaad qabta. Waqti xaadirkan caqabada ugu weyn ee imtixaanka ku noqotay badqabka caafimaadka ayaa ah fayraska corona, waxaana socota dadaalo lagula tacaalayo wax ka qabashada iyo sidii looga hortagi lahaa fayraskani iyo sidoo kale sidii loo dabargoyn lahaa cudurrada aan la isku gudbin. Wakiilka hay'adda WHO dalkani Itoobiya Dr. Inrajat Hasare ayaa sheegay in loo baahan yahay sidii goobaha ayna ka jirin adeeg bixinta caafimaadku loo gaadhsiin lahaa adeegyo caafimaad. Many of the inequalities in health outcomes. Inkastoo muddooyinkii u dambeysay ay muuqatay kor u qaadidda adeegga caafimaadka, haddana waxaa jira goobo ayna gaadhin adeegyada caafimaad. Guud ahaan waxaa la tilmaamay si loo xoojiyo korna loogu qaado adeeg bixinta caafimaad inay doorkooda ka qaataan sektarada bahwadaagta la ah wasaaradda caafimaadka oo aan kaliya lagu eegin arrintaasi wasaaradda caafimaadka. gudoomiyaha ururka federalismka ee Soomaalida oo waraysi siiyay telefishinka qaranka ayaa ku baaqay in dowlad deegaanada Cafarta iyo Soomaalidu ay wada hadal ku xaliyaan dhibaatooyinka ka dhex taagan labada dhinac, soo ku waramayo wariyaha ETV Maxamed Maxamuud. gudoomiyaha xisbiga federalistiga ee deegaanka Soomaalida ayaa waxa uu sheegay in dhaqdhaqaaqa geed socodka doorashada si weyn loogu diyaar garoobayo. Xukuumadda deegaanka Soomaaliduna ay sallaxday qorshooyin ballaaran oo isla markaasina loogu diyaar garoobayo geed socodka guud ee doorashada. waxaana uu ka hadlay mudane Yuusuf Xuseen in geed socodka iyo waliba dimuqraadiyadda ka jirta deegaanka Soomaalida marka xilligii hore loo eego xilligan ay tahay xilli wanaagsan oo isla markaasina xisbiyada siyaasadeed ay si xor ah u dhaqdhaqaaqi karayaan. Inkastoo xisbiga federalistiga ee ka dhaqaaqa deegaanka Soomaalidu aanu doorashadani ka qayb qaadanin, balse wuxuu ammaan weyn soo jeediyay sida weyn ee lagu diyaar garoobayo geed socodka doorashada ee dalka ka qabsoomisa wareegga lixaad. waxaana uu tilmaamay oo ku baaqay in dhibaatada meelaha kala duwan deegaanka Canfarta iyo waliba deegaanka Soomaalida dhinaca xadka ka jirtana sidii ay labada deegaan heer federaal iyo heer deegaanba ay wada hadal iyo wada tashi ugu xalin lahaayeen ayaa wanaagsan. oo isla markaasina maadaama ay yihiin koox shacab laba walaalo ah oo darisa loo baahan yahay wada hadal in lagu xaliyo khilaafaadkaasi ka dhex dhacay. dhinaca kale waxa uu ammaan soo jeediyay isbeddelka siyaasadeed ee ka hana qaaday deegaanka Soomaalida, waxaana uu tilmaamay oo uu sheegay inuu rajaynayo marka ay doorashadu dhamaato kadibna codbixinta doorashada iyo guusha cidda ka heshay doorashada guudba sidii loogu jawaabi lahaa si cadna looga jawaabi doono ayaanu ku rajo weyn yahay. waxaana uu tilmaamay in geed socodka iyo diyaar garowga ballaaran ee loogu jiro doorashada guud ee dalka qabsoomisa ay tahay mid si nabadgelyo ah oo dimuqraadiyadda uga socota deegaanka. dhalinyarada maamulka magaalada Dhagaxbuur ku dhaqan ee ka soo baxay kulliyadaha farsamada gacanta ee Dhagaxbuur ayaa waxay sheegeen inay door weyn ka qaateen qurxinta iyo bilicda magaalada, sida uu ku waramayo wariyaha TV Maxamed Maxamuud. maamulka magaalada Dhagaxbuur waxay ka mid tahay magaalooyinka sida xawliga ah uu u socdo horumarkoodu gaar ahaan isbeddelka kadib, waxaana deegaanka ka hana qaaday gaar ahaan fursadaha shaqooyinka ah ee lagu ballaarinayo. haddaba magaalada Dhagaxbuur waxay ka mid tahay magaalada sida firfircoon fursadaha shaqooyinka ugu ballaadhisay dhalinyarada, gaar ahaan ardayda wax ka soo baratay ama ka soo qalin jabisay kuliyadda TVET-ka ee kuliyadda farsamada iyo waxbarashada ee maamulka magaalada Dhagaxbuur, oo fursado shaqooyin in ay ka helaan magaaladii ay ku barteen isla kuliyaddii iyagoo ka soo qalin jabiyay ay isla magaaladoodii fursad shaqo ay ka helaan oo imika ka hor arrintaasi aanay dhici jirin. qaar ka mid ah shacabka ka faa'iidaystay leydgelintaasi ayaa sheegaya in dhibaatadii imika ka hor jirtay iyo faa'iidada uu leydhkani ku soo kordhiyey ee magaalada la geliyey ee quruxda magaaladana wax weyn ka bedelay. marka meheradani aad bay leedhka magaalada bilicda aad bay wallahi si fiican ugu tartay. marka waxtarkaasi iftiin aan awal aan qabin ban hadda yeelanay. marka wax soo saarka iyagu iftiinkan uu noo keenay aad bay bulshada ugu farax madow bay nagu hayd hadda inta ka horreysay hadda leedhka aan loo xidhin hadda kor socodka leedhku dinuqaha aad bay noogu yaray iftiinku, laakiin hadda aad buu noogu fiican yahay maasha may leedhkan ma lahaan jirin markii hore madow buu ahaa xabad xabad ku xiran meherada hortooda mooyee leedhkan iftiinka ah tiirarka ma lahayn markii hore, laakiin hadda markii lagu xidhay de magaalada wadooda oo dhan baa ifaysa meherada hortoodii mooyaane, laakiin dhammaanba suuqii oo dhan wuxuu noqonayaa iftiin iyo qurux oo u soo birtay magaalada iyo kalarka leedhka isagana casaan ah. marka waxay isku aad bay qurxinaysaa bilicda aad bay kor ugu soo qaatay magaalada. isbeddelka kadib deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka Jarar waxaa soo kordhay fursadaha shaqooyinka ee loo abuurayo dhalinyarada. haddaba maamulka magaalada Dhagaxbuur oo aad arkaysaan bilicdaasi iyo quruxdaasi ay leedahay waxaa suurtageliyay oo door weyn ka qaatay fursadaha shaqo abuurka ee maamulka
magaalada dhagaxbuur u suurtageliyay dhalinyarada gaar ahaan ardayda ka qalin jabisay kuliyadda TVET-ka ee maamulka magaalada dhagaxbuur ama kuliyadda farsamada ee maamulka magaalada dhagaxbuur ardayda ka qalin jabisay xirfadda hal abuurka ah ee ay la yimaadeen ayay ku horseeday in ay bilicda magaalada wax weyn kaga bedelaan gaar ahaan dhinaca qurxinta bilicda magaalada ee dhinaca leyrka iyo iftiinkaasi aad arkaysaan waxaan kamid ahay qowlaha jaajada qowlaha toolajka magacayga xasan ibrahim aadan baqraa waxaan kamid ahay bajaajka ka shaqeeya qowlaha toddobaad astaankiisana uu yahay halkan waxa weeye laba ilaahay sameeyo ma aha hadda waxa weeyaan bulshadan أول هرم أنا هنا جري بين الله وقت كنا ما نجكسو قارجين إيه وحلا يا إلا كويتونات كنا كويتون صح نقش قيم ماشي أبي ترون كمان كنا هالكم بس عشان أنت عليك باقي شقيا وحوي ليركم فائدة النولي هذا ما نشوفنا ده مدري نقوله تذكروا مين عندما بتشاجيني جولاني إيه وحوي المدة يفتين إلى هاي ما وصل يقدر واحد كان سفيدين ليه الحمد لله والله geestiisa maareeyaha wakaaladda bilicda iyo nadaafadda magaalada dhagaxbuur oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa waxa uu sheegay in mashruucani uu wax badan ka bedelay dhanka bilicda magaaladaas leerkan waxaa fuliyay xafiiskayga waxaa fuliyay wakaaladda bilicda iyo nadaafadda leerkan waxaa hal abuur ka dhashay dhalinyaradii ka qalin jabisay TVET-ka maamulka magaalada dhagaxbuur ama kuliyadda farsamada xirfadaha ee maamulka magaalada dhagaxbuur waxaa dhacday in iyagu macnaha sanadkii hore waxaan fulinay 3 kilomitir oo leerka sirideedka ah iyagoo macnaha kaashanaya fikirkooda iyo macnaha aaladan cusub iyo siyaasiyadan cusub iyo macnaha quruxdan iyo leerka magaalada ku cusub ayaa waxay abuureen ama ay la yimaadeen hal abuur innovation marka waxay la yimaadeen farsamadan kadib anagu markayna tuseen waan yaabnay markay aaladii la yimaadeen farsamada la yimaadeen ayna tuseen xitaa leerkana biyay ku shubeen biyi xitaa way diin waayeen show kicin waayey kadib waxaan ku niri ballantusan tijaabiya kadib si comparative soo abuureen iskaashatay noqdeen dokumentiga liisankii shuruucdii bay dhamaysteen maadaama ay ahayn dad kale isku xidhnaa oo hal xirfad bartay hal kalaas ahaa TVET-kan ka soo qalin jabiyay kadib waxay shuruucdii aan waxaan leeyahay xafiiska shaqaaburka xafiiska wakaaladda shaqaaburka iyo damaqaadka cuntada soo mara shuruucda soo mara iskaashato noqdeen comparative kadib waxaan ku leeyahay farsamada cusub ee leerka sirideedka ee bilicda magaalada kor u qaadaysa ee leedihiin macnaha waa quality yar yahay leerka tiirka lagu xiray ee guriga lagu xiray isku hal macnaha waad ku cunayaan saacada macnaha wax badan kama cunayo halkii saac waxaan ku shidi karaa 1 kilomitir ayaan ku rina tusa markaan ku rina tusa waxay wayna tuseen 700 mitir almost 40 guri 700 mitir oo garanaysaa almost 75 macnaha marka 1 kilomitir waxaan qorsay 75 kilomitir oo giftiya ayna tuseen oo shileen kadib waan ku qanacnay kadib waxaan sameynay inaan halka macnaha ku siino dhalinyartii inay magaalada 15 kilomitir ka mid magaalada galiyaan kulli caawdan way wareegaynay wada rateen shacabka waraysateen macnaha magaalada waraysan leerka inta leeg shanta wiil dhalinyarta ayaa la timid xirfadiisa kadib waxaa dhacday in maamulka magaalooyinka ay express share-gan u yimaadeen eega haddaan dhahno degmada awaaro kale way yimaadeen degmada iyo caalo kale way yimaadeen waa gobolka jaran laakiin marka maamulka magaalada dhagax wixii ka baxsan ee noo yimid qabdar eeg dhalinyartu qabdar bay ka bilaabeen waxaa noo yimid maamulka qabdar weliba xafiiska bixinta iyo bilicda ayaa macnaha xiriir loo soo sameeyey waxay dhaheen leerka cusub cidda bixisay iyo macnaha dhalinyartan macnaha inaan la xiisan doonina kadib best practice ahaan bay noogu yimaadeen khibrad ku socday kadib qabdahar baa iyada hadda laga bilaabay gudayna way ka bilaabeen marka leerkani waa leer macnaha bilicda magaalada wax ka bedelay magaalada markaan madooba ahayd iminkana waad garan kartaan insha Allah waan bilaabin doonaa wana sii wadoonaa faa'iidada saakiin leerka laga helay kaliya tadaan sheego waxa weeye magaalada marka maqribkii tahay kooda fiidnimo inay magaalada tahay inay miit madax gareemi haddii ilaahay kaas horbixiyo leerka guriga waxa u dhaxeeya leerka bajaajka ama taxi ama gaariga socda maanta laakiin magaalada fiid laga ruuxi jiray hadda laakiin magaaladu way socotaa habeen iyo maalin way socotaa marka waad gaari kartaa magaalada inta leeg oo 16 kilomitir 3 kilomitir wadada laamiga iyo 2 kilomitir iyo bar macnaha hadda macnaha magaalada la geliyay oo daraf magaalada wayna soo maray waa soo dubnay
dee magaaladii qurux bay noqotay eega marka haddaan eega magaalada korkeeda saa uga baxno waa magaalada soo geliyaad garan kartaa markii hore magaalada mugdi bay ahayd kale waxaa lagu faana ah ardaydii magaalada wax ku baratay ee ka soo baxay kulliyadda farsamada iyo xirfadaha maamulka magaalada Gaxbuur ay xirfad la yimid waa macnaha ujeedada koobaad ee macnaha anaga macnaha ka xafiisaan iyo ka maamul ahaan sharaf noo ah in innovation ta laga nimaado oo maamulka magaalooyinka kale iyo magaalada kale ay nagu dadaan dadaalkana waa si laba jibaari doonaa haddana insha Allah leerku u socdaa maana joojinin waana wadi doonaa leerkan kale waxa anagu aan ku sii qanacay waxa weeye xilliga roobka markii noo saabinayeen biyo ku shubeen dhalinyartu marka waxaan oran karaa leerka caadi ka cimri dheeriye oo sababta ah maadaama roobku wuxuu ka qaadi karin inay maasa timaado ama dabeel timaado mooyaane waa leer macnaha quality leh xagga bilicda magaalada ku fadhiyay magaalada quruxdeeda soo saaray magaalada waa in maalinkii magaalada haatan mooyee waa in habeenkii magaalada tahay marka waxaan oran karaa hadda ka hor magaalada Gaxbuur maalinkii un bay ahayd magaalo habeenkii sakin magaalada ma oran karin oo magaalo mugdiya oo de gaari soo socdo soo gali jiray eega salkiinta leerka la shiday istiraadka wadada weyn ee laamiga la furay magaalada ogtahay wagaag markana wararka ka imaanaya dalka Soomaaliya wasiirka warfaafinta dalka Soomaaliya ayaa sheegay in natiijo la'aan ay ku dhamaatay wada hadaladii arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya wasiir Cusmaan Dube wasiirka warfaafinta dalka Soomaaliya ayaa fashilka wada hadalada waxa uu ku eedeeyay madaxda maamul goboleedyada Jubbaland iyo hanade Puntland wasiir Dube ayaa dhinacyada ku eedeeyay in aanay ogolaanin heshiisyada horey loogu gaaray arrimaha doorashooyinka geestooda mas'uuliyiinta Jubbaland iyo Puntland ayaa fashilka wada hadalada sheegay in uu ka dambeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Farmaajo si kastaba ha ahaatee beesha caalamka ayaa siyaasiyiinta Soomaalida waxay ugu baaqday in xaaladda cakaran ay ku aadan arrimaha doorashooyinka ay ku xaliyaan wada hadallo warkii waa naga intaan soo gabagabayn han idin xasuusiyo qodobada wararka ku doorka roon waxaa la abaalmariyay qaar ka mid ah macallimiinta doorka wanaagsan ka qaatay hirgelinta geedi socodka waxbarasho ee dalka ururada rayidka bulshada ayaa sheegay in ay door weyn ka qaadanayaan sidii doorashadu ay u noqon lahayd mid ku dhamaata dimuqraadi iyo hab nabadgelyo wagaag daawadayaal warkii telefishinka qaranka oo naga intaa waad ku maasantiin daawashadiina nabadey